waxaa xalay fiidnimadii magaalada laascanood ka ambabaxay qaar ka tirsan ciidamada Somaliland ee ku sugan duleedka magaalada laascanood. wararkaanu ka helayno ciidamadaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ay godoodeen kadib markii ay cabasho ka soo jeediyeen in way ku yar tahay mushaharka ay ka qaataan maamulka Somaliland. ciidamadan ayaa iyagu isaga ambabaxay gudaha magaalada laascanood iyagoo wata technical aad u tiro badan. wararka kale aanu ka helayno magaalada Warwin ee gobolka Cayn ayaa sheegaya in sidaas oo kale ay ciidamo ka tirsan Somaliland ay iyaguna sidoo kale iskaga soo gadoodeen isla markaasna ay u soo baxeen dhankaas iyo magaalada Caynaba ee isla gobolka Sool. wararkaanu saaka helayno ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Siilaanyo uu go'aan degdeg ah ku bixiyay in loo kordhiyo mushaharka askarta kaasi oo sida wararku sheegayaan ay mushahar askartu u qaadan jireen 240,000 oo lacagta Somaliland ah isla markaasna hadeer loo laabay. waxaa lagu arkay xalay magaalada Laascanood baabuur teknika kuwaasi oo ka imaanaya bariga magaalada Laascanood isla markaasna u sii socda dhanka waqooyiga. haddaba wararka ayaa waxay sheegayaan in saaka ay soo gaadheen magaalada Caynaba gobolka Sool qaar ka tirsan mas'uuliyiinta Somaliland kuwaasi oo khudbado kala gedisan u soo jeediyay ciidamada isla markaasna u sheegay in mushaharkoodii loo kordhiyay isla markaasna ay toos ugu laabtaan xerihii ay ka soo kala kaceen. ida warku sheegayo in ku talagalka askartan ay ahaayeen inay si toos u abaaraan madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa. waa markii u horeysay tan iyo intii Somaliland ay gacan ku haynta magaalada Laascanood la wareegeen oo ay sidan oo kale u gadoodaan iyagoo markaasi cabasho ba'an ka muujinaya mushahaaradooda isla markaasna ficil iyo go'aan ka qaatay. maxamed cismaan cabdinuur Somali Channel TV Laascanood.